Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada dhammaan akhyaarta intiina la socotay iyo inta hadda nagu soo biirtayba. Waa cashirkii shanaad ee koorsadii lagu baranayay luqadda Ingiriiska. Maantana waxaan ku qaadanaynaa parts of the body. Listidoodan baranaynaa. Parts of the bodies waxaa laga wadaa part. Ereygaas part waa qayb, marka waa P-A-R-T-S. Parts qaybaha. Of waa ereyga of waa preposition. The na waa article, waan arki doonaa sida iyo qaabka iyo waxyaabaha keena. Parts of the body qaybaha jirka. Qaybta ugu horeysa waxaa weeye head, madax. Head waan arkaynaa madaxa qofka. Head Ingiriiska haddii aad rabto inaad isticmaasho madaxa waxaad dhahaysaa head. Waxaa ku xiga hair. Hair waa timo. Face waa weji. Forehead waa sujuud. Forehead sujuud meesha markii la tukanayo dhulka la dhigo. Forehead waa sujuud. Eye ereyga y-e waxaa loogu dhawaaqay eye sidii xarafka beetada markaan soo marinay eye ku jirtay sidii aydi waa loogu dhawaaqay. Waxaan eyes waa markii ay badan yihiin s baa la raacinayaa. Eyebrows waa sunayo timaha ku yaala hindhaha korkooda. Eyelash waxaa waaye baalal timaha ku yaalo indhaha daboolkooda ku yaalo. Ear waa dhago. Ear waa dheg. Nose waa san. Mouth waa af. Afkaaga amba af haddii aad rabto inaad isticmaasho luqadda Ingiriiska waxaad dhahaysaa mouth waa af. Lips waa bishimo. Teeth waa ilkaha. Tongue waa carabka. Chin waa lafta garka, lafgareed. Neck waa luqun. Shoulder garbaha. Arms gacmaha. Elbow suxulo. Elbow suxulayaasha. Wrist waxaa waaye meelaha laabmata waaye. Xibnaha laabmo gacanta. Hand waa gacan. Palm waxaa waaye calaacal. Finger waa faraha. Thumb suulka gacanta ku yaala waaye. Gacmaha lugahana suul baa ku yaala, kaas ma aha. Chest waa xabad. Back waa dhabar. B-A-C-K waa dhabar. Stomach waa calool. S-T-O-M-A-C-H. Belly na waa la dhahaa caloosha. Belly waa calool sidoo kale. P-B-E-L-L-Y. marka waxaa u dhaxeeya b-da tanna waa b midan hip ku taalo waa b ayadana. Marka labadan b maxay ku kala bedelan yihiin? English ahaan dhawaaq anaga Soomaali haddaan nahay isku dhawaaq si baan ugu dhawaaqnaa, laakiin si ahaan waa kala bedelan yihiin oo isku wada b, laakiin dhawaaqooda waxa weeye tan waa b caadi ah way. Tanna bishimaha la isku qabanay p baa la p. Belly waa calool. B-E-L-L-Y. dadka cusub oo raba inay ka faa'iideystaan oo fahmaan ereyada iyo maaragtay xoogga saarayo way baran karaan. Waist waa dhaxda. Hip waa sima ama miskana waa la dhahaa. Sinna waa la dhahaa. Waxaan kaloo dhinaca ka fiirinaynaa leg waa lugo. Lug way hal lug. S haddii la raaciyo waxay noqonaysaa lugayaal. Marka L-E-G waa hal lug waxaan dhahaynaa leg. Waxaa ku xiga knee. Ereyga markii K iyo N ay israacaan inta badan waan arki doonaa K-da waa la aamusiyaa sida night habeen waan arki doonaa K baa ku jirta. Knock oo qarqaraacid ah. Know oo garasho ah. Knife oo mindi ah. wax walbo hadday israacaan N iyo K oo ay K-da soo hormarto K-da inta badan waa la aamusiyaa. Ankle waa canqowga lugta midka ku yaalo. Foot waa cagti. Heel waa cirib.
2 suulka lugta ku yaalo waa ka suulka lugta ku yaalo waa kan skin waa maqaar skin waa maqaar heart waa wadnihi artaas waa la aamusiyaa Britishka heart waa Americanka brain waxa waay maskax brain maskax waa 39 eray 39 eray waa badan yihiin dabcan xubnaha bini'aadamka inta way ka badan yihiin laakiin intaas horta maanta videoga uu nagu dheeraanin intaas aan ku soo gaabsani waxaan halka ka galeynaa iyagoo sentence la raacinayo sentence erayga markii lagu baro oo aad fahanto waxa muhiim ah inaad isticmaalkiisana aad bilowdo haddana sidaad u isticmaalayd baan ku sheegay erayga waa kan oo ku siiyay isticmaalkiisa inta loo isticmaalaan haddaan ku sheegay head soo madax ma ahayn head madax waan ku soo marnay Soomaha waa h e a d intaas wiliga dambe English hada ku aragto head madax baa laga wadaa haye iyadoo jumlad ku jirto meeshan fiiri casharkii labaad demonstrative pronoun markaan soo dhiganaynay waxaan soo baranay erayga thisna waxaan ku sheegnay hal shay oo agtaada yaalo marka waxaa qaadanaysay this is my head my waa wax adiga kula xiriira si un adiga u leedahay mise adiga lagu saleynayo mise adiga naftirka aad isku maaratay ku xigaa way marka this shaygan is waxa way my head madaxiga this is my head this can is my head waa madaxiga hair waa timo my hair timahayga is black waa madow my hair timahayga is black waa madow face waa weji she has waxay leedahay a beautiful face weji qurux badan she has a beautiful face weji qurux badan ay leedahay she waa iyada has boski is ay noo gashay hadda ay ku jirtaa waxaana ista waxa bedeli kara waxyaabo fara badan iyadoo has bedeshay waatan she has waxay leedahay a beautiful face weji qurux badan hal weji leedahay weji ma forehead waa sujuudi waay my forehead sujuudayda is clean waa nadiif sujuudayda waa nadiif I have waxaan leeyahay one eye open hal il ayaa ii furan I have one eye open hal il ayaa ii furan eyes waa indho ayagoo badan indhiyo la badiyo asal raaciyay oo jumlad ku jirana waa kuwana my eyes indhahayga are brown waa colorka brownka eyebrow waxa way sunniya timaha ku yaalo indhaha korkooda waxa la dhahaa sunniyo my eyebrows indhaha sunniyaashayda are thick waa kuwa badan markay badan yihiin oo maaragtay buuxaan waxa la thick hey my eyelashes baalashayda are long waa dheer yihiin eyelashes aan ku celiyo meeshaas she has waxay leedahay long dheer eyelashes waxa baalal indhaheeda waxa ku yaalo baalal dheer she has waxay leedahay long eyelashes baalal dheer ayay leedahay this can is my ear tani waa dhegtayda tan is my ear waa dhegtayda noise waa san my noise sankayga is small waa yar yahay my noise sankayga is small waa yar yahay mouth waa af ayada jumlada gelinayo waa kan ereyga mouth waa kan open for your mouth afkaaga fur hali bisbishimaheeda soft waa kuwa jilcan soft wax jilcan brush waa caday brush teeth waa ilka brush caday waa teeth ilkahaga every day maalin kasta every waa kasta dayna waa maalin tongue waa carab stick out your tongue stick soo saar stick out waa isla socotaa stick out soo saar your tongue carabkaaga soo saar chin waa lafta garka he touch wuxuu taabtay his chin laftiisa garka lafgareediisa ayuu daaray neck waa luqun my neck luquntayda is long waa dheerta my neck luquntayda is long waa dheertahay shoulder waa garbo my shoulder garbahayga is strong waa xoog badan yihiin xoog ayay leeyihiin waa strong waa adag yihiin
arm waa gacan. Raise your arm gacantaada taag. Raise your arm gacantaada laga soo bilaabo faraha lacasha ilaa suxulka ilaa gacanta oo dhan arm bali. Elbow waa suxulo. Bend your elbow. Bend waa laab. Your elbow suxulkaaga laab. Bend laab. Your elbow laab suxulkaaga. Rest dhowriga waa muusante. Rest waa laabmitada gacanta. My rest hurts laabta meeshaas gacmaha ilaa laf dheerta ay ku kulmaan Allah. Hand waa gacan. Wash dhaq. Wash waa ina wax dhaqdaa. Marka ereyga markii wash hadda waxaan ku barnay Soomaa. Wash hadda barato inaad isticmaasho shay kale inaad isticmaasho waa. Wash your hand Soomaa. Wash your face inaad isticmaali karto. Wash your hands gacmahaaga waa tambo. Hay wash dhaq way mar. Wash dhaq your hands gacmahaaga dhaq. Plum waa calaacal. My palm calaacashayda is clean waa nadiif. Ereyga clean waa nadiif shay nadiif ah. Finger waa far. Point ku taag mise ku fiiq. Your finger fartaada. You are with your finger shaygaad tusayso farta ku fiiq. With your finger fartaada ku fiiq. Inaad dhahdo waa kan farta ku fiiqdo. Thumb waa suulka gacanta. My thumb suulka gacantayda is big waa weyn yahay. Back waa dhabar. My back hurts dhabarka ayaa i xanuunayo. Stomach calool. My stomach is full calooshayda waa buuxdaa. Belly waa sidoo kale calool. The baby canuga touched uu daaray uu taabtay. His touch waa taabasho. His belly her belly gabadha waa gabadh canuga la sheegayo. Her belly the baby canuga touch way taabatay. Her belly caloosheeda. Waist waa dhaxda. His waist dhaxdiisa is small waa yar tahay. Hip waa simo. My hip simahayga hurts way xanuunayaan. My legs lugahayga are strong waa adag yihiin. Knee waa jilib. Bend laab. Bend kalena waan soo marnay. Bend your elbow baan ku soo marnay. Bend waa laabid waa isma bedelayso. BEN haddaad marto haddaad aragto on bend. Marka bend laab your elbow lugahaaga jilbahaaga laab. Ankle waa anqow. Lugaha bahalkan lugaha ku yaal anqowga lugaha ku yaal waa. I hurt waan dhaawacmay ankle suxulka anqowgayga ayaa wax iga dhaceen. Foot waa lug. Foot cagna waa la. My foot agtayda is big waa weynte. Yani meesha kabaha la gashto lugaha. My heel cirbaha hurts ayaa i xanuunayaan. I hurt waxaan ka dhaawacmay mise wax iga gaareen. My toe suulka lugtayda. My skin maqaarkayga is soft waa jilcan yahay. Waa soft waa dibicsan. My heart wadnahayga heart waa wadno. Is healthy waa caafimaad qaba. Brain waa maskax. The brain maskaxda helps us annaga waxay naga caawisaa. Ereyga us waa annaga. Adiga naftarkaaga ku jiro. Adiga hadlayo iyo dhowr qof oo kale. Adinkaas annaga sooma noqonen annaga. Tusaale ahaan we are learning or maybe I am teaching. Okay erey as ku jiraan raadinaya. As waxa waaye marka adiga iyo qof kale iyo dhowr qof oo kale waxa wada sameeynaysan. Okay they are giving us ayaga waxayna siinayaan tea shahayna siinayaan. They are giving us tea shahayna siinayaan. The brain maskaxda helps us annaga waxay naga caawinaysaa think inaan fikirno. Marka waxaan soo dhiganay 39 erey iyo isla iyaga iyo jumlado ku jiraan. Marka jumladahan waxaan u raaciyay erey inta waan ku deyn lahaa laakiin waxa ku jira dad barbilow ah. Hadda waxa suurtagal ah inaad dhahdaan waxaan waa badan yihiin sida lagu fahmayaa. Qofkii hadda u soo jeesto ilan cashirkii oo baariya aniga waxa weeye ku celin kar inta doontiin. Waxaan waa YouTube ku xishan kartaa video duuban weeye. Video haduu duuban yahay inta doontaa ku xishan kartaa. Marka cashirkii oo codkiisana raacsan gacmaha lagu fiiqayo spellingkiina barta uu saaran yahay loo fasirkiisina uu la socdo. Marka ruuxi danaynayo mise ay dani kaga xiranta mar raba inuu fahmo luqadda Ingiriiska marka waa aad buu u saacideynaya. Asaga is horumarin kara teleefankaaga buuggaaga yar.
MB yar hadaad helayso haddii wifi ah haysatan waaba kaaga sii badan. Marka excuse mase marmarsiyo maaha, ma baran kari waxaan meel iskama soo saari kari. Waxaana waxa weeye wax adigu ku caawinayo. Haddii aad barato erayadan, adduunyada waa aragta technology-da waa horkacaysa, waa socotaa, marba waa isbedelaysaa. Fiidiyoyada kale ayaad kala socon kartaan. Marka technology-da iyadoo sidaa u sii horumarayso, marba waxaad laga yaabaa inaad dhahdo hadda AI baa meel walba yaalay, maxaa uga baahanahay luqadda Englishka. Englishka waa muhiim sidii aad ugula xiriir lahayd AI-da iyo inaad af Soomaali isticmaasho, inaad luqadda Englishka aad fahanto. Horta waa aad bay u kala fogtay. Saa ha ahaatee, waxyaabaha hadda caalamka ugu horeeya la fahmo barashadoodana muhiimka tahayna waxaa jiro luqaddan Englishka. Luqado kale ka soo ifbaxayana waa jiraan sida adiga, laakiin waxaa laga yaabaa adiga baahidaada bay ku xiranta iyo meelaha adiga aad joogto mise aad is leedahay aad aadid. Marka Englishka waa koorsadii intaasaan kusoo gabagabeynaya. Haddaad intaan la soo gaarteen aad ayaad u mahadsantihiin. Sidaas iyo nabadgelyo. Ha ilaawin inaad subscribe saarto haddii aadan horey u saarin. Haddii uu ku ahaane inaad like saarto ha ilaawin. Sidaas iyo nabadgelyo. Ashirkeena xiga.